بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu ognahay maanta in wadankeena ay ka jirto shaqo la'aan baahsani oo runtii lafjab ku noqotay bulshada dhaqaalaheeda iyadoo ay jirto shaqo la'aanta inta leegi ee baahsan ee bulshada iyo dhalinyarada cududii ummadda dusha ka haysata ay wadanka ka jirto ayaa waxa dhacday maanta in xukuumaddan talada haysa ee kulmiye ay tiraahdo intii hore shaqeynaysay barkood ayaan xanibaad saarayna waxa weeyaan amar ka soo baxay ama dekreet ka soo baxday wasaaradda gaadiidka ayaa wuxuu sababay in ay is hortaagto bulsho qayb bulshada ka mid ah oo xoogsan jirtay oo dhalinyaro u badan oo gaadiid leeyahay taasina runtii ma suuragal aha wax aqliga gali kara maaha ummadii shaqada in loo abuuro ay ahayd in kor loo soo qaado in hoos loo dhigo oo shaqadii laga joojiya oo badh la xanibaa wax aqliga gal maaha kulli iyadoo shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha bulshada iyo kor u qaadida dhalinyarada ay anaga marka hore istiraatiiji noo ahayd xisbi ahaan ay u dhaxaadkayga ahayd maanta xukuumadda joogto waanu ku waaninaynaa in ay shaqada dhalinyarada shaqadooda kor u qaado oo bulshada dhaqaalahooda kor u qaado laakiin se aanay culays saarin oo aanay sortaagin waxa loo baahan yahay marka amar soo baxayo in aqli lagu daro waxa weeye marka uu wasiirku joojinayo gaadiidka raaxada loo yaqaano ee uu leeyahay gaarigu ma bixi karo ma waxa la eegayaa darawalka iyo liisankiisa iyo shahaadadiisa darawalnimada oo haysto mise waxa la eegayaa baabuurka conditionkiisa ismu weydiinin wasiirku ismu weydiinin halka cidda uu joojinaya waxay tahay ma waxa la joojiyaa qof mise waxa la joojiyaa oo cid waxa professional ku abalaya shaqada ma qaban kartid jooji waxaas mise waxa la joojiyaa gaadiid soconaya waxa weeyaan gaari wacan ama gaari weyn ama gaarilaan cruiser ama mid basa oo conditionkiisu fiicnaan baa jira xukuumaddu way cashuurtaa baabuurtan loo yaqaan raaxada cashuur bay ka qaadada kadib ka soo deegaan dalkiina kama shaqeyn kartaan baa ay leedahay wax aqli gal ma aha iyo wax la qaadan karo waxaan soo jeedin lahaa xukuumadda iyo wasaaradda inay arrinta dib uga fiirsadaan waxa laga yaabaa hadii ay jiraan inay xukuumaddu leedahay waxay abuuraan maxaan ku raadayay amni darro iyo khalkhal iyo waxbay abuuri karaan dhalinyarada baabuurta wadata waxay ahayd in system raacaan dawladnimo ilaa waa dawlad oo ay sameeyaan iyagii u sameeyaan community iyo gudiyo oo ay waliba ilaa maamul daadajin sameeyaan xaafad iyo degmo laakiin may ahayn ma dhaqaaqi kartaan imika waxa xidhan oo xaniban oo gobolada ku xaniban kii reer berbera wuxuu ku xanibay burco kii reer hargeysa wuxuu ku xanibay boorame kii reer boorame wuxuu ku xanibay berbera xitaa kama fakirin dawladdu markii amarka soo saaraysay in ay taahdo waqtigaas haystay intii reer meeleblaaya ama gobolka ka soo jeeday gobolka joogtay waa ina soo baxdaan gobolkii nitimaadaan waqti ma siinin neytus ma sameeynin waxa weeyaan waxaad moodaa iyadoo anigu aan madaxweynaha had iyo jeer ku badhalilin ba arrimaha aanan ku dhalilin ba arrimaha maxaan ku raadayay xaga dhalinyarada dad badan baa jira oo ku dhalila markuu dhalinyaro magacaabo baaritaan maanta hay'adaha dawladaha inta dhalinyarada ka shaqeysa ama inta dhalinyaro u magacaabantay ay joogtaan way ka muuqdaan hay'adaha kale sida daraadeed waxaan oran lahaa arrintaasi waa arrin aan la qaadan karin waa arrin aqli ku soo bixin waa arrin cilmi ku soo bixin waa arrin aan la daraasadeynin waa arrin ummadda dadkii ma dhalinyartii tahriibta laga maslixi jiray baabuurta yar raaxada islaan lagu dacaadeyn jiray ma hooyo ku jira tahriibin hadii kuwii laga joojiyay maanta la kuma masruuf kartaan bal waxa cabirtaan oo isu geysaan oo maskaxdiina gelisaan maanta imise qoys baa masruuf ayaa ka hela masruuf oo lagu masruufaa intay saameyn u geysay inta qoyska kala qaaran maanta qoys walba gaarigii lagu masruufi jiray oo gobol kale ku maqan yahay intee bay dhaawac keeni kartaa intee bay dadka mushkilad ku tahay dadka inta baal xukuumadda ku soo kordhisa maaha iyadoo cidna aan la dhaliilaynin oo la istoosinayo cidna aan lidi lagu ahayn in xaqiiqada la isu sheego oo runta la isku toosiyaa
oo la isku taakuleeyaa wax tarbeytay waxaan ku waaninaynaa xukuumadda xaween anagu shaqo abuurka oo intaanu ku ololeynayni waa intaanu birina ku ololeynayna in dhalinyarta kor loo qaado in dhaqaalaha la kobciyo in horumarin lagu sameeyo bulshada waa istiraatiijiyadeedii bay ahayd maantana ma daawan karo macnaheedu ma hadaanu mucaarad nahay inaan mas'uuliyadna saareen waxaynu mid u nahay mucaarad iyo muxaafid qarannimada qofka muwaadinka ah xuquuqdiisa inaynu ilaalino waynu wada taaganahay waxaan ku soo koobayaa wasiirku caqli waa inuu ku daraa haddii ay jiraan oo dhici karta haddii ay jiraan in sidaan horeba u sheegay wax lagu soo eedeeyo hay'adaha amniga ka timi digreetihiisa kuma cadaynin wasiirku intaan arkay anigu kuma cadaynin in uu leeyahay hay'adda caynkaas baa xanibtay ma garan karo anigu ugu dambeyntii sharci lagu xanibayo qof muwaadin ah gaariga xaq waxa loogu leeyahay in darawalka la baaro oo la eego shahaadadiisa darawalnimo uu sito laakiin si xaq looguma laha gaari hebel iyo nooc baabuurta kamida ayaa istaagayay waxaan leeyahay ganacsiga iyo mas'uuliyadda qaranku iyo isgelin arrinta dib looga fiirsado fariintani waa mid xukuumadda oo dhan ku socota qoliyihii dhalinyarta ahaa ama gaadiidleyda ahaana ay ku dhacday arrintaasina waan ka tacsiideynayay qaranka dhammaan bulshada Soomaaliland oo dhan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.